Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaad ku soo dhawaataan koorsigii aan ku baranaynay sidaan u samaysan lahayn website lacag la'aan anaguna wax kood aan qorin. Casharkan waa casharka 15aad waxaan ku qaadanaynaa qaabka aan domain name-ka website-ka u bedel lahayn. Muuqaalkii ka horeeyay waxaan ku qaadanay qaabka aan u samayn lahayn domain name free ah. Soo maanta waxaan rabaa domain name-ka aan soo sameeyay in aan ku apply gareeyo in website-kayga. So ugu horreyn waxaan imaanaynaa qaybta server side. qaybta server side markaad tagtid waxaad imaanaysaa qaybtan hoose ee setting-ka. mar alla markii aad setting-ka aad tagtid meeshaan ay ku qoran tahay blog address waa ciwaanka website-keena. waxaan riixaynaa qaybtan hoose meesha ay ku qoran tahay set up third party URL for your blog ayaan click leenahay. markii aan click gareyno waxaan tagaynaa website-kii aan domain name-ka ka sameynay. ciwaankeena ayaan furanaynaa. ciwaanka markaan furno waxaan imaanaynaa meeshaan ay ku qoran tahay service. kadib halkan ayaan waxaan ka doornaynaa my domain. haddeertan haddii aad fiirisid waxaa halkan noo yaala keliya hal domain. haddii aan domain name fara badan soo sameeyo ayagoo idil halkan ay soo gadan lahayn. So waxaan tagaynaa meeshaan ay ku qoran tahay manage domain. manage domain markaad dhaadid waxaad imaanaysaa meesha ay ku qoran tahay manage free name DNS. click ayaa leedahay. markaad click gareysid waxaad imaanaysaa qaybtan kore waxaan soo koob gelinaynaa domain name-ka. intaan aan select gareeyo kadib koob ayaan leeyahay. inta ayaan imaanaynaa domain name-keena waxaan ka hormarinaynaa in www kadib waxaan leenahay dot domain name-kii aan soo koob gareynay ayaan halkan ku baast gareynaynaa. mar alla markii aan halkan ku baast gareyno waxaan soo qaadanaynaa meesha magaca ayaa waxaan ka soo koob gareynaynaa www ama www aan qor karnaa intaan aan soo koob gareysto. destination-ka ayaan soo koob gareeyay. inta ayaan imaanaynaa meeshaan ayaan click gareynaynaa magaca ama name-ka wuxuu ahaa www kadib meeshaan type-ka ayaan click leenahay waxaan ka dhigaynaa cname. sidoo kale target-kana waxaan ka dhigaynaa destination-kii hadda aan soo koob gareynay. halkan ayaan ku baasta gareynay. inta ayaan waxaan leenahay more records ayaan leenahay. kadib waxaan imaanaynaa in blogger-keena waxaan soo koob gareynaynaa intaan. markaan soo koob gareyno waxaan imaanaynaa dhankan sidoo kale meesha name-ka ayaan baasta leenahay waan ku baasta gareynay. in sidoo kale waxaan imaanaynaa qaybta blogger-ka hal mar intaan aan soo koob gareeyo. markaan soo koob gareyno waxaan imaanaynaa dhankan kale halkan ayaan isagana ku baasta gareynaynaa. markaan ku baasta gareyno waxaan leenahay save change. error ayaana haysto. error-kana waxay tahay waxaan ka tagay in cname meesha laga dhigayay. meeshaan waxaan ku baasta gareynaynaa destination-kii hadda aan soo koob gareynay baast ayaan leenahay. waxaan ku laabanaynaa blogger-ka qaybta name-ka aan select gareeyo kadib waxaan leeyahay copy. waxaan imaanaynaa dhankan halkan aan ku baasta gareeyo. meesha haday aan ka tagno waxay ahayd in type-ka. so type-kaas aan kala gareeyo waxaan leenahay waxaad noo dhigtaa cname. markaad deletid waxaad leedahay save. waa ku guuleysanay in aan save gareyno xogtay. waxaan imaanaynaa qaybta blogger-ka kadib waxaan leenahay save. si aan save u dhahaynay waxaanu soo qoray relate site mar refresh u dir. so relate ayaan leenahay. okay waxaan ku guuleysanay inaan ka bedelno in domain name-ka balse waqti dheer ayaa nooga qaatay. in waxaan sugayo ugu yaraan 5 daqiiqo. in ugu dambeyntiina wuxuu soo qoray in website-ka hal mar reload u dir. reload markaan dhahnayn waxaa halkan noo soo galay domain name-kii aan sameynay. hadda haddii aan dhahno view blog saad arkaysaan website-kii domain name-ka midkii hadda aan ka dhigay ayuu qaatay. videogeena halkan ayuu ku eg yahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.